salaamaya dhammaan daawadayaasha wanaaga qoyska anigoo ah DJ Caliziin waayaha cusub horta markuu ugu horeyso waxaan leeyahay ma aragtay waa waxyaabo qalad ay ku dhawaaqeen heesahoodii hore ma aragtay si aad iyo aad u fiicnaayeen ma aragtay waa la socday heeso oo wanaag ay ahaayeen qaar waxay ahaayeen qaar wadani ahaayeen qaar heeso caadi iska ahaayeen oo raab iska ahaayeen saa ogtay heesta hadda ay soo qaado waxaa u maleysaa qulubta ma aragtay Soomaalida inay kicisay oo aad la iskugu kacay heesti ma aragtay waalatay oo darbi ifir ka qalaabta meesha ay la isku tuuray dislike hadana weligeed la arkin Soomaali tan ku dhacday marka waxa u maleysaa inay hees ku socoto dawlad wax dawlad ay ku socotana waa ogtahay marka Karbaash waa laga soo horjeedaa waa laga hor imaadaa ma fahanto marka waxyaabo qalad ay ku dhawaaqeen aan leeyahay ma aragtay ka fiirsadaan hees dambe waxaan leeyahay ha u kala kacdo oo hees fiican soo qaadaan ma aragtay ee dadka ay jeclaysan karaan ma aragtay oo ay qaas u dawlad waxaasna ay soo gelineen sababta fanaaniinta caalamka waxa lagu ogaay inay dadka ay soo fargashaneen ma aragtay dadkooda u haay ma aragtay xilalka ee faraha la soo galin hees qaas u heesa jecel oo iga dhaxdooda mise dadka kale public ay jeclaan karaan heeso ma aragtay heesa ay soo qaadeen ma aragtay dawlad ay ku saabsantay waxaasna ma aragtay waa wax ma aragtay aad loogu xumaaday ay soo qaadeen dad badanna ma aragtay ay ka xumaadeen marka waxaan leeyahay heesaha kale soo qaadaysiin dib ugu dhigta oo heeso fiican ma soo qaada oo si ay u jeclaan dadka aad like u heshiin viewsna u heshiin waxa u maleysaa heestii ma aragtay soo qaadeen like ka badato viewska wala liyaabay ilaa waxa la yaabay recordka jibi waxa soo marka waxaan leeyahay ma aragtay hal ugu soo noqdo ma aragtay tan dambe ka soo fiirsada bismillaahi raxmaani raxiim halkan nagala socotaan waa wanaaga qoyska Allah naga barateen arrimo xiiso leh iyo barnaamijyo xiiso galiya maanta waxa ka hadlayaa arinta jirta waxyaha cusub oo bariyahan aad u haysta YouTube-ka fanaaniin badan oo u soo jawaabay waxyaha cusub Karbaash oo waxyaha cusub ku socda dad badan oo waxyaha cusub ka hadlayo horta waxyaha cusub yaa ka dambeeyay arinta waxyaha cusub in dawladda soo caayaan yaa ka dambeeyay tan kale ma isweydiiyay lacag miyay qaateen oo waxyaha cusub oo hunguri ahaan lacag tilisay de soo Karbaash dawladda miyaa la yiri caaya ma fahanteen dabcan waxa soo dhanba ini faahinaya garabkeyga midig waxa jooga DJ Cali in badan wajigiisa waa aragteen saaxiib aan ku soo dhawow DJ Cali wanaaga qoyska waan dhawahay aad u dhawahay maaragtay waa ku mahadsan tahay aad aan salaamay dhammaan daawadayaasha wanaaga qoyska anigoo ah DJ Caliziin halkaan waxaan uga hadlaynaa ma aragtay waayaha cusub ma aragtay halka heestay ka imaaday iyo dadkii ka dambeeyay inay xoogaa ma aragtay canshuur shir lagu soo siiyay heestan inay karbaashaan dawladda hadda fadhigeedu tahay Muqdisho nabadii nolol marka heestan saa u maleynayso waxay ma aragtay turjaan u tahay ma aragtay mise Karbaash ku tahay ma aragtay Xasan Cali Khayre iyo ma aragtay Farmaajo heestan waa hees ma aragtay oo loogu talagalay qaas ahaan oyga dadka oo filla Soomaaliya fadhiyaan lagu karbaashayo heesta waxa maleysaa in dadkan lacag lagu soo sii waayaha cusub een ahayn hees ma aragtay oo caadi oyga iska soo qaadeen hees ay tahay dad kale oo ma aragtay shisheeyay mise Soomaali ay yihiin oo ma aragtay qabyaaliste ma aragtay ka dambeeyay heestan in ma aragtay lagu karbaasho Soomaalida oo dhan iyo dawladda Soomaaliya marka aad iyo aad ugu xunnahay ma aragtay oyga Soomaali ee wadankooda sharaf darro ku tahay inay hoos u dhigaan ma aragtay like waa laga xun yahay waxaas ma aragtay tribka dambe mise ma aragtay inay fikradooda ma aragtay ugu laabtaan waxaan ay ka fikiraan ma aragtay in waxay burburiyaan ay tahay dhulkooda Soomaali hadhowna ma aragtay dhulka ay joogaan ay ka tagayaan dhulka ay u laabanayaan dhul Soomaali ay tahay marka wadankooda waxa u dhaantaa inay dhistaan heesaha ay soo qaadayaan heesa Soomaali ay jeclaanayaan surakaca ee Soomaalida inay tahay marka waxaan leenahay ka soo fiirsada heesaha dambe soo qaadaysiin heesa fiican oo dadkana dhiirgelinaya inay noqdaan DJ waxaan ku weydiiyay DJ Cali waxaan ku weydiiyay su'aal aan ku weydiinayaa su'aashu waxay tahay raggan ma rag soo adeegsan miyaa dadku waxay leeyihiin inta badan xanta dadka inta badan oo xagga Facebook oo lagu xamanaya inuu Daahir Cali soo diray oo Daahir Cali soo ma aragtay soo Karbaash yiri arinta maxaa ka leedahay aniga ahaan ma dhihi karno dada soo direen dada ma aragtay ka dambeeyeen qalalaasahan iyo dawladda la karbaashayo marka waxaan leenahay aniga wax war uma hayno wixii been ma aragtay aniga ma sheegi karno oo wax noola soo sheegay iyo waxaas ma aragtay wax anaga indhihiin aan ku aragno ma sheegi karnaa sidii markii loo arko waxaan inay dadka dambeeyaan way caddahay waxaan wiligeed lama arkin ma aragtay in hees la soo qaado oo dislike intaas la eeg iyo ma aragtay views la'aan ay ku dhacdo
wayna dhici kartaa in la soo diray mana dhici karta in la soo diray labadana waa lagu qiyaasi karaa ma fahamtay marka arrintan waxay noqoto way soo bixi doontaa waana lagu daba jiraa dad oo aqoon-yahan oo ma aragtay oo ku takhasuseen ma aragtay sidii waxyaabaha loo baaray halkay ka imaadeen arrintaas ku jiraan marka waa la ogaan doonaa meel ay ka imaadeen waa hagaag hadda bis leedahay videoga waa ka baxay oo dislike waa badatay oo iminka videoga heesta waa laga saaray bis leedahay kulli xayisiin uma saarna channelkaas oo soo geliya videogaas xayisiin uma saarna saa filayo in anigu YouTube xoogaa wax waa ku leeyahay oo khibrad xoogaa yar waa ku leeyahay laakiin xayisiin uma saarna laakiin maxaa leedahay inuu dislike badan way qariyaan hadda intee gaarta isleeda imka dislike horta waa la qariyay an naftirkay dislike hal xabaan dhac siin lahay like waa laga qariyay waa fahmi waay sheekada waa fahmi waay dabcan maxaa isleeda dislike taas hadda dislike way moodo 200 waa lagu qiyaasa 250 waa lagu qiyaasi karaa 250 waa lagu qiyaasayaa dislike taas oo wayaa cusub loo saaray waa la qariyay waa wax la yaabo waa falxumo in la qariyo dislike waxay la qarinayaan waa fahansanahay inay soo saaraan fiicneed oo la dhaho inay soo saaraan waxa ku jecel aniga ku jeclahay oo soo bandhiga dislike taas Soomaalida Soomaali jaceelkaas aniga rabaa in Soomaalidu aad ku dawlad u jeceshahay oo wanaag iyo horumarka saasaba rabaa in dislike inay qariyaan ma ahayn laakiin khasaare u qariyaan wariyaaya waxaan sheegaa wariyaha cusub saaxiibayaal dislike noo furan maadeeriyaal aan ogaanay ma aragtay inay 600 gaartay inay ma 300 gaartay ilaa 200 kun gaartay imika waa hawada laga saari doona saafilaya mise laga saari doona u maleynaya dislike waxa loo qariyay screen shot kala qad qaadanaya waa saa awgeed loo qariyay si kale looma qarin laakiin dislike wali way socotaa iyadoo dislike la qariyay wali waa la sii taawanaya dada sii wata hawsha hala qariyo mise la qarin wali waa la wataa laakiin waxay u qariyeen oo ay kiriyay screen shot-ka oo baraha bulshada lagu sii faafina inta kaliya qariyeen intaasna mar reeb baxda dislike waa screen shot mar laga sii qaatay waa gartay waa hagaag dabcan maxaa u leedahay Soomaalida inta badan heestaas ka xumaatay oo carrada ah oo ma aragtay commentiga sida xun loo karbaashay dabcan raggaan awal hore maxay ahaayeen muddo 4 sano ka baqnaayeen 5 sano maxaa leedahay raggaas 4 sano ayuu ka maqan maxay u yimaadeen dawlad u soo faragashadeen awal ilka casaa ogaa igu sawir maanta waayaa cusub maxaa keenay arrimahaas oo dhan saaxiib waxa la leeyahay waxa keenana waa dawlad xumada meesha taalo iyo wax qabad la'aanta ma aragtay meesha taalo waa dawladda ma socoto dawladdu waxay la socon laadana waa shacabkii shacabkina hadal ma maqlaayaan marka waa la fahmi lahaa sheekada ma fahamtay dawladuna ma socoto dawladuna waa lagu kacsayn dawladda markii lagu kacsayna dawladana iidana dad kale la sii dagaalamaysaa sidii ururka ma aragtay argagixisada ma aragtay oo gudahana wax ka wadaan banaankan wax ka wadaan mar dawladda iidan naftirkeeda tawar la'aan ma aragtay rafaasan marka in lagu sii buuqo ma aha teeday meel saar la adahay marka anaga naftirkeena inaan garab qabana loo baahnaa anagana inaan qarab qabin ma aragtay xagga waa iska taagna banaanka ka istaagna marka waxaan leenahay inaad soo garbaashi leed adoo heesa kala qaadato ku dhaanta oo ma aragtay heesaada kala jaceelki iyo heesa kala raabkaada hore agsay wad sida waayaha cusub aan ognahay raab bay hore u soo qaadi jireen marka raabkooda inay ku ekaadaan ma aragtay waxa kala faray kala baxan ilkaas waa ogeed waxa ka dhacay igu sawir waagi waxa ka dhacay ilaahay baa oga baraada marka waxaan leenahay hadii ilkaas waa isaga raab waa ognahay heesu soo qaadaa heesihiisu kaliya uu ka eegina kaas marka waxaan leenahay ma aragtay fanaaniinta dhan inay heesooda caadiga ka ekaadaan ma aragtay danta ma aragtay shacabka iyo tan ma aragtay dawladnimada faraha ay ka qaadaan ayaan leenahay daawadayaalkaasi wuxuu ahaa DJ Cali dabcan waa nin oo dhalinyaro ah oo wanaagga qoyska ka mid ah tiimka wanaagga qoyska dabcan soo dhaweeya DJ Cali soo dhaweeya waa nin oo dhalinyaro ah oo wax badan og leh xikmadaysan dabcan la soo dhaweeyay ninkan DJ Cali waa la dhahaa hor maxaa leedahay asxaabta aad dambeyn maxaa leedahay asxaabta waa gabagabadii barnaamijka asxaabta aad iyo aad aan salaamay gaar ahaan wanaagga qoyska waxaan idin leeyahay wanaagga qoyskana ma aragtay halkaas halganka laga sii wado dislike-tana halkaas ka socoto dawlad meeni hala dhaama faan bul ha dhahdo telefishinka tan ugu yaabka badan ajaanibka yaabaan report-ka hala waxayo Mareykan laga arko meel kasta laga arko ma garat American yaabaan la rabaa dislike oo maxaa Soomaalidan cadawga isku ah what the fuck waan idin salaamay aad iyo salaamay halkaas aan ugu sii baxaynaa intaan isku soo laaban doono waxaan idin leenahay sidaas nabadgelyo intaas ma aragtay inaga tagayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dislike-tan ha socoto
ولينا يا لقى صار فيديوغا حليه waa laga saaraya wala diiday ma laga saaray haysiina uma laha no laakiin waxaan arkaniyo channel oo la sheegayay oo daahir maamulo oo la soo galiyay waayaa cusub ha waxas ma jiraan way jiraan malena ma jiraan dabcan waa ula socotaan dabcan arimahan taxanaa waa wadana waayaa cusub soo afjarena meesha ku dambeeyaan casharadoodii qaabka dadka soo diro dhan waa soo baaritaan adag baan ku soo sameeynaa arimaha oo waxa ka dambeeyay iyo waxaas oo dhan inaan ma soo bandhignaa rabnaa halkan nagala socotaan waa wanaaga qoyska Allah naga barateen arimaha xiiso leh barnaamijyo intaas iga tagaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh